وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا إخوتي في العقيدة ورمضان وحانا فيليا ووقت ملادتكم الدالي لكن waxaan isku dayayaa inaan kalimaad kooban insha Allah ta'ala dariskan ku soo koobo. dariskan waxaynu kaga hadlaynaa at-taqat al-muhaddara awoodaha Alla siiyay subhanahu wa ta'ala ee aynu dayacnay ama si aynan adeegsanin. Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamay wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ilaahi wuxuu nimco idinku galladaystay wuxuu baraariya saradiya barwaaqo idin siiyay haddaad tirisaan baa Alla leeyahay subhanahu wa ta'ala ma koobi karaysaan nimcooyinka Alla subhanahu wa ta'ala ma aha wax tiro lagu koobi karayo laakiin waxa isweydiinta leh waxa weeyaan intaynu nimcooyinkaasi ka faa'iideysanaa ama si adeegsanaa dhan kastoo laga eegaba nolosha waxaad moodaa inaynan halkii loo baahnaa gaadhin ama si aynan ku qanacsanayn مثلا ورمضان dadku inta badan quraan akhris iyo cibaado iyo salaad iyo tasbiixaat iyo duca ayuu ku jira markaynu milicsannay in yar taariikhdii dadkii muslimiinta hore waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kawkab kale ku noolaa dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganayaan deganayn markaad aragta awoodooda juhdiga tamartay bixinayeen waxay yaqaaneen waxay qaybsanaayeen marka lagu yiraahdo waa caalim muslim oo fulana maanta waxaan ku dhuftay kutub الرجال matraajumka ayaan xafid al-quraan ku qoray dabeetana waan galay waxaan eegay bal culamadii muslimiinta hore ee la yaqaanay ama la garanayo waxay quraan hayeen man aragnin caalimo iga soo horbaxa ilaa iyo quraan iyo intaasoo kitaabo kale qaybsay quraan qura inagu keenna quraanka qayba ayaa ma sha Allah taagantay kaasaynu ma jiirana farta ku tilmaamna waxa la yiraahdaa intaasoo xaafid baan leenahay hebel waa xaafid laakiin markaynu salafkeena akhrina taariikhdooda iyo taraajimtooda waxaad moodaa dad kawkab kale ama dhul kale deganaa inaynu arkayno oo kaanama marka lagu yiraahdo waa Bukhari inta soo 100,000 xadiis buu qaybsana waa Imam Ahmad oo 1 milyan oo xadiis buu hayay waa Awzaa'i inta soo 100,000 xadiis nin walba marka lagu yiraahdo 100,000 xadiis oo mac sanadkiisa wata iyo wuxuu dhanban kitaabba ku qorayna uu korka ka watay bal ay subac u fadhiisan jireen sidaynu quraanka subaca ugu fadhiisanaabay xadiista subaca ugu fadhiisan jireen dabeetana inta nin caalimi nin kale u yimaado uu ku dol akhriyo jiray wuxuu mahfuudaadkiisa dhan inta ku dol akhriyo ayaa la isla sixi jiray oo la kala eegi jiray innaga maxaa taaqadan iyo awoodeeni xagee ka baxda dariskan marka maanta aan isku dayeen in akhriyo waxa weeyaan waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yiraahdaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhanay aad u qallafsan muraayadaha qallafsan waxay suurto gelin kari waayeen inay noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasa waxay keentay markaasi in taaqaadkeena iyo awoodeena iyo dhama ay catilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasa waxay keentay in maalinba maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaa aynu sanadno berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad waqti u dayday doontaa noloshana mar la firaaqo baaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladan idinka jibinaya yani waxaan rumaysnay in silsiladaynu ku xidhan yihiin awoodii iyo taaqadii Alla siiyay subhanahu wa ta'ala in silsiladaynu ku xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalma kamida waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeenka laba website oo quraanka iyo xadiista lagu qaybo kadib waxaan arkoon iclaan yaro meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa quraanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidii waa qariib war mala 30 maalmood quraankii aad taqaanay 30 mala laguma qaybo 30 maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page
lixdan iyo saddexdaa bayj runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska beddelaya waxa uu xisaabiya uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinnaa laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma waalcaziima waalmusaabara midi waa han sare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii lalahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoo waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awood inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waaye Soomaalidu waxay yidhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaabay yidhaahdeen adduunka ilmo yar baa dee neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirunbu xooggiisa arkaabay yidhaahdaan waxaan ka baqayaa inteenna badani inaynu ku dhacno aakhira un inaynu aragno awoodda iyo nimcada iyo xooggii allayna siiyey subxaana wa tacaala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo الصحبة الصالحة المشجعة إن له الضد في عن وقرقار ستور راعدد وأن مثبطين هنا أن ضد بلك كوكونا بيا هنا ضد كركو قاضي يكركو سي وضيا وحلقة يابا ولينا وهي ستان إعلان كيا تلمامي ها إن قرآن كصدن مالموت صادقو قيبه سايني مسألة الرياض هاي waxa uu sameeyay amaliye xisaaba xisaabtu waa waxyaabo ugu concrete ee bini'aadamka lagu qanciyo amaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay bayjka quraana imsaad ku qaybi kartaa bayj quraana aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska quraana imsaad ku akhridaa ninka gaabiya nus saac ku akhriya ragga carabka fududina rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassidkuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddaan idhaahdo jiska nus saacaad ku akhrida jiska quraani way mise page markaynu qaadano tabcadatan Uthman Taha uu qoray yani mushafkan inuu akhrina ninba gacantiisa ku qoray madbacadii waxa maaha ninba gacantiisa ku qoray عثمان طه كتاب كان قري وحو سميسي قاب شنية طبعا صدر بيت كستابين وككوبين يهي آيات نكبل ما آياتنا وكل ماضو جسوة لبلا باتم بيتينو يهي مركا لغا ريبو جسكا كوادة فاتحة دي انتان لقرحيي كاسوا كوبيا لباتم بيت مركا لغا تغيسنا جسكا وقدام بيا جس عامة oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 3 page ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 page jis kastaaba sadaradeed mushafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 page haddaynu dhahnaa 20 page ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac page-kii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood qaybi waa daqiiqadii badh صحيح كما بيج كواحد أخري كرتا دقيقة دي بط قفك جابية صدّن دقيقة دو جسك كو أخريها بيج كي وح أخري كرا محي دقيقة يبرد بكو أخري كرا صدر إمسات كو حفدي كرتا مركز إمسات كو عليشه هل صدر مثلا قل هو الله مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إمسات قور مركز أخري دابات غيبيس يعني مصحف كامر كانوا نقول هو الله نسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد انت صدر إلا لم يلد مساتكو غيبيس marka hadii mise goor akhrido mar laba saddex afar shan lix toddoba siddeed imsaad ku qayb karaysa haddii aan idhaahdo maalan shan jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo sadarkaa markaad akhrido shan iyo tobanka sadar imsaad ku akhriyaysaa marka yacni sadarkiiba waxaad ku akhriyaysaa minute iyo badh soo maaha bejkii minute iyo badh baad ku akhriyaysaa
minute iyo badh haddaad ku akhriyaysay bejka 20 jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nusu saaci bejka 20 jeer inaad akhridaa waa maxay waa nusu saaci wuxuu leeyahay camaliyada xisaabiga ninkani sadarka haddaan ku idhaahdo buu yidhi 5 jeer akhri oo si fiican u akhri 3 jeerna muxaawalee 8 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo buu leeyahay macnaheedu waxa weeyaan 12 daqiiqadood baa bejka lagu qaybaa laakiin waa 12 daqiiqadood oo tarkiis leedahay bay yidhaahdaan waa 12 daqiiqadood oo aanad meel la u jeesanin idan haddaad bejkii 12 daqiiqadood ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan weli la socdaa inamada dheeraynaya lama socdo bejka haddaad 12 daqiiqadood ku qaybi karto haddii maalintii aan ku idhaahdo 5 nus saac akhri qur-aanka 5 salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa waa 4 saacadood iyo badh 4 saacadood iyo badh 12 daqiiqo haddii lagu dhufto 60 loo qaybiyo waa imisa waa 5 bej dad min saacad kasta 5 bej baad qaybi kartaa haddaad 5 intaa ku dhufato waa 22 bej iyo badh macnaheedu waxa weeyaan 4 saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 bej labada bej iyo badhka tuur 20 bej waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyay haddaad sidan ku socoto waxaad ku qaybaysaa waxa weeyaan 27 maalmood taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban 30 maalmood uu sheegay uu ku qaybi karaa waxa laga yaabaa inaad tiraahdo mustaxiil waxana iska xisaabaad sheegtay sheekhay practicalka laguma hayo practicalka haddii asbaab la helo waa wax suurtagal ah waxa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan imaam zuhri quraanka markuu baranayay 8 casho ku qaybay yani sida bale hisham al-kalbi waxa la yiraahdaa 3 casho ku soo qaybay waxay ku sheegaan rag badan marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin raggaas waa raggii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ah inaan hadda jooga haddaba tilmaamo إلهي ارتوحين لي وفي أنفسكم أفلا تبصرون وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقل جيسو وحو قاضي وح عجز قليي ملايكته آدم عقل جيسو وحو قاضي محي سا قرآن كنت الماميو وح عجز قليي ملايكته با آدم عقل جيسو قاضي سيكال هدانو تلمامو وحنا دلهي هدي aynu iska reebno afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhri karo waxba lama baran karo wax waa saab waa cul hortiijabayay taasi haddii taa la reebo waxaan leenahay wax badan oo fududaanaya baa jira bal aan bacdi tajaarib ay soo naqliyaan tilmaamo gabadh haweena ayaa waxay tiri waxay igu qaadatay ali cimraan iyo albaqra inaan qaybaa 7 sannadood kadib ayaa bil ramadaan 15keedii baa ninkaygu wuxuu yidhi bay tiri waan i'tikaaf tagayaa waxaan qabanayaa baytullaahi alxaraamka 4 caruurana waan haystaa bay tiri waan warwaray marka meel aan reerkaygu deganayna waan deganay dabeetana maxaad qaban doontaa 15 cashe ramadaanka ee odaygii maqayay ayaan isweydiiyey bay leedahay anigoo aad u mahmuuma bay tiri aad u wareersan baan internetka galay waxaan helay bay tiri website-kan akademiya xufaad alwaxyayn waa sheekh cali rabiic sheekh cali ibn saciid al-rabiici website-kiisa waa website dadka quraanka qayba ay galaan ayaan galay bay tiri dabeetana sheekha website-kiisii markaan eegay ayaan waxaan arkay bay leedahay qola meesha ku qoratay 3 casho ayaan baqariya al-imraan ku qaybna ana 7 sanadood bay igu soo qaadatay bay tiri al-baqara iyo al-imraan inaan qaybo waxaan arkay bay tiri dumar le 3 maalmood baan ku qaybnay al-baqara iyo al-imraan dabeetana waxaan sidii buu yiri maad bal qoladan waxa wax ka bedelay maadna gashi website-kan register gareeyay bay tiri waxaan rabaa inaan member ka noqdo dabeetana waxay gashay dawraad uu bixiyo sheekhu oo la yiraahdo dawraad tagyiir al-aql buu bixiyay dawraadkiisa dawraadka maan bedelka ayay gashay kadib ayaan bilaabay bay tiri munabbah baan saacad yar baan halkan dhigtay
bal inaan beejka 10 daqiiqo 12 iyo waxaan la sheegay inaan ku qaybi karo waan tijaabiyay bay tiro 10 daqiiqadood baan beejkii koowaad ku qayba dabeetana maalintii koowaad baan fadhiistay bay tiri subaxii ayaan fadhiistay goor barqa ah ilaa iyo 2:00 duhurnimo in yar baan jiifsay kadib aan casar fadhiistay ilaa cishihii maalintii koowaad baan istijaabiyay 3 jis baan qaybay bay leedahay waa hal maalina ayaan istijaabiyay bay tiri 3 jis baan qaybay 6 maalmood markaan marayay bay tiri 6 iyo 10 jis baan qaybsanaa 6 maalmood markaan marayay 6 iyo 10 jis baan qaybsanaa waxaan gaadhsiiyay bay tiri inaan 8 daqiiqadood beejka ku qaybo waan ka badiyo markii dambe 5 daqiiqadood uma beej kasta ku qaybi jiray gabadha tan mala caqligeena ka weynaa aan hore isaga dhaaf ومعاصم هويني كلام لا يراد يدو حلادي أنا وحن سمي مسألة لا يراد الاعتكاف بالقرآن بين سمي بيتنا لبعتن مع الموت ما القرآن قيبة غريبة لبعتن مع الموت ما القرآن قيبة بيلاد ولي بيلاد ما نهين قفض مراعد لشوكتي أفر عرورة يا أبوه يا جورجا يا رير كان وين مامول يوم ودي بيلاد هبن كم مغرين ساسي درادد بوحي شاعر سائل هذي دورات كشيخ سبحية بيتري علي الربيع علي بن الصعيد دورات كيسا تغيير العقل كان دقيستي كدي مركان دقيستي أيام بلا بيتري مسا ما هلتي هررت اللح صفحات بان قيبي بيت وان وذا يوم مركي دم بيوحن قاري بيتري أنا لبيه طبعا صفحات قيبي كره ما المهي وجود دم بيوحن قاري بيتري أنا كنتن صفحات قيبه ما أنت أن ختمي أنا لبيه تضباط صفحات بان قيبه لبيه تضباط صفحات ضايمس صفحتي هدين ريتشيسكو ولا 20 صفحة ضادي مسون غنيا سدح جيس يبرد يدارد وليبا لبا إيه 7 صفحات بان مالنتي ودن بيسي قيبة بيلاده لكن مسي يكون فردي هلا ده فرق لاتن كيك ساعدات سديد إلا 8 ساعات بان حفظي وفردي سديد إلا 8 ساعات أيان حفظي وفردي أي كنت المامي ساحبين كينا لبا ساعات بان سيحن شري مالنتينا لبا ساعدود iyo badh baan habeenkiina seexan jiray maalintiina snaab yarun baan qaadan jiray in yarun baan indha gududsan jiray kadibna waan ka kici jiray waayo project bay sugayay bay leedahay inaan dhameeyo waxa laga yaabaa ina masaa'ilka kan ka yaabantihiin laakiin waxay yiraahdaan hadii sababta la garto bay yiraahdaan batal al-ajab wax waliba marka aad sababta garanay wax weyn buu kula yoodka yaaba dayrad cirka maraysa markaad aragto warbalada tan maxaa hayabaad sooydiin laakiin hadii lagu dhigdhigo say wax doolaan iyo saadoo waxa ha warilan waxan baa la isu geegeeyaba dada iska kacaan waa kula fududaanaysa yaani qofka bini aadamkii marka uu sababta aqoonin wax waliba qariib bay leeyihiin wax adaga weyn bay leeyihiin laakiin hadii lagu sababeeyo lagu riisan gareeyo wax lagu sheego wax way fududaadaan ilaahay wuxuu ina siiyay subxaanahu wa ta'ala maskaxdani aad bay u yartay jidhkeena marka lagu miisaamo bay yiraahdaan waa 2.5% wasniga jidhka ay yiraahdaan waa 1330 gram meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo waxoogaa yar weeyaan maskaxda kugu jirta haweenkana bay yiraahdaan raggu 40 gram buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 gram bay ka miisaan yariyeen maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yiraahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc kamida kaligeed baa cunta halaaliya waxaad oxygen cabto rubuc kamida maskaxdaas cabta maskaxda waxa ku jira balaayiin unugya ah maskaxda inugu jirta waxay yiraahdaan 22 decimeter kama taqaanay centimeter ma hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter مربعة يعني سكويرة 22 decimeter انتو لاقي somewhat ما لهم بولا كانيا وواحد ير سنتيمتر وديسيمتر 22 decimeter سكويرة مسكحدة بني آدم كم دي بيد هذا waxa ay qaadi kartaa 20 waxay qaadi kartaa baa 20 milyan oo volume ama book inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood inta laga wadato waa 22 decimeter in kamid oo maskaxda sidata kamidi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit al-hajmiya waxay ku tilmaamaan مثلا أحد العلماء وبروفيسور كلادا ماك روزيزن
وكم علماء مسكحة دراسيسة جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بو دراسيني كذبوا حليه هي هديبوا يري مسكحة بني آدمك مالين كسته 10 معلومات في الثانية الله شيء قبولي سكند كسته 10 شيء هدي الله شيء قبولي سكت كوال برقصي هل كم من يتبع لحدا سكنه سكند كسته أما ثانية كسته أو كم إذا الله شقفك هدي الله شيء قبولي 10 شيء 10 معلومة الله شيء مدة لحدا صنادات الله قوة habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sanadood baana lagu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل بوليه 1 على مليون من حجم العقل sida daraadeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyay maba isticmaalo bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yiraahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حسابي في الدقيقة سمين كرتها waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 بليون معلومة أي في الثانية معالجة ku samayn karta yani computer dunida yalla saan uma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda dhaakiraduna waxay ku xidhantahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan ahad ulama ba wuxuu leeyahay hadii buu yiri dunida waxa TV iyo telefisyon iyo radar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaala hadii inta la yareeyo buu yiri aqliga bini aadamka kale loo ekaysiiyo waxa soo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yani all telephone dunida yaala waxa allaaliya waxa switch dunida yaalo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daraadeed ayu ahad ulama waxa uu ku tilmaamaya hadaynu isticmaali lahayn buu yiri xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow hadaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay يعني بني آدم كيبلدي وحي سادو اسكو خدخدو كمبيوتر استرادو مسكخدان يرا adiga ilaahay kugu rakibay shaqaday qabato wax u eeg wax qaban kara in la sameeyo waxay qaadan lahayd buu leeyahay xajmiga 770 mitir square oo 10 dabaq kor loo dhisay xajmi xaasuub leeg buu leeyahay barnaamijyadiisa misaal la sameyn kara buu leeyahay taayada reeba yani programsku ku shaqeyn lahaa inta lagu sameyn karayo iyada reeba waxa meeshii yaalla wuxuu yahay طاقada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay طاقada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin wax qabasho la'aantu waa maxay qofka bini aadamka gacantaada mesela haddaad halka dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa haddaad halka dhigto 10 daqiiqo haddaad ku hayso marka dambe ku daalaysa walaal gacantiba way kaboobiyootay haddii lagu yiraahdo saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaa hadhow ku damqato way shaqada tirtay cudwi kasto bini aadam kamid oo la shaqo tira waa nooca ka cudwiga haddii la shaqo tiro hawlgab baa ku dhaca hawlgabku soo ugu dhacaya mesela مثال بسيط أنا بسياني كي يقول عاي بربراني كو كسرانية قاعد فوشة من القلبي كعم بانك شباب دبتنا بهلا يرير الله فها قاعد تاكل شراية براي ميت كم إذا شفتي الله يركبه الله هلك الله يحري شاني أفرتنا عشان مركي كو حد بالله يغفري جبوت الله يغفري دبتنا وحلي دوله واكو شبانت دي بهدنا الله يركبه يروبان لتجي تضباط المعلومات مركي يقول ركبنا بالله فري دبتنا waxay dhahan wali way ku jabanta ma laftii yaray wali ma rakibmin laakiin
gacantaydii baa halkaa dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaas ay joogtaa deetana waxay igu yidhaahdeen laftan yara jabtay iska illow imika khatar kala ku haysatee gacantan sidaynu kala bixin lahayn baynu tijaabinaynaa laftan iska jabnaato waxba layma qabtee physiotherapy baa lay diray halkaa dhudhunka iyo muruqa sare cududa laygu dhagaa waa layga cabaadiyaa 3 cashaan imaada xoog baa lay qabtaa waa layga cabaadiyaa marka qayliya cabaar baa lay sii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yar u kala baxaysay maalinta dambe ay gacmaha isku dheerari labadeeda gacmood way sileegeen ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinay maxaan u jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xidho way hawl gabtaa hadii la xidho sida laga dhigo way hawl gabtaa mushkiladda ina haysataa waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnaa markaas waxa laynaga dhaadhiciyo laynoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buuga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysaa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno ood wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale inuu kala furaabad u baahantay jirka bini aadamka ahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaan ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeyay waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarkan sare waa weeyeen mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waa weynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban shaarka marka iska bixiyaan waa feedha yar yar laakiin cagu waa weeyeen waa loo train gareeyay yani qofka bini aadamka meesha la kobciyaa kobocda haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdii karto wax baran karto waa wax aad u fudud Bukhari haddii la qali lahaa maskax inteeda leeguma ku jirtay kaba badnayn kuwa kale casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaa ay yiraahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa Albert Einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah yahuudi jarmal markii dambana Mareykan noqday waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weaponkan la sheegay iyo fikradahan TV-yadan iyo waxan iyo waxa soo dhamin nadariyaad physics uu leeyahay bay ka soo burqadeen waxa ay yiraahdaan waa aqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan aqliga deentoodu bay yaqaaneen waxay yiraahdaan markay intoodii isku dardareen waa aqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo mara bay yiraahdeen sadraadeed bay waxay yiraahdeen ninkan yeeynana aasine balaan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxan ninkan ku jira iyo غير caadiga ah waxay yiraahdeen Einstein maxaa loogu tagaad u malaynaysa qof bini aadam aqligii baa loogu tagay bay yiraahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yiraahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiyo oo adeegsado idan Bukhari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad إمام أحمد وحو الرميسنا وحو حفظيين مكتبة سيهين أبو زرع وحو الرميسنا مكتبة سوحو قيبين ايتاي شافعي ساسو الرميسنا أئمدي هورساسو ننكو علمي سلابتي سكسيت كمانكم ككتابة إنو شيء إنه إمام الطبري بارددي سوحو لي أنا دين يري تفسير قرطة همدا يراتي بو يرو دايمك وحبا سدن مجلدود بو يري تفسير سدر مجلدود يرينيا waxaanu leeyahay himada yaraatay ma yaraantum baa lagu bilaabaa maya بعض العلماء ba waxay qoreen kitaab la yiraahdo man hafidha al-Qur'an ba'da al-40 bun qoray afartan jir ragii dhaafay quraanka qaybay oo maxaad quraan sheegaysa azhar aimadeedii nin kamid ahaa konton iyo afar jir buu ku bilaabay wax qorista waa imaam al-akbar lil azhar laakiin konton iyo afar suu magaalada isaga joogay markuu afar iyo konton jir marayay ayuu yidhi nimaad wax baratid horta waqti badan baaba kaa lumaya waa bilaaba azhar buu soo galay dabeetana waa soo waday waa soo takharrujay imaamul azhar isagoo ah buu dhintay 9 jir daadiisuna marayso
سكاشن يا فرسان أظن ملا حسن في العين كلهم تمشي سكاش ملا لكن وحول أنت يسقوا إمام أزهره يعني وحو آمن سنة أودي الطاقة كتشرتا إني وح كستقبل كرتا أيو آمن سنة إذا وح مشكلة دمشق طالبين لأن ما أها وح مشكلة دمشق طالب وحي تاي كو إنه جهل وينجسوا جاي نفتنا إلهي وين إليه سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلهي سبحانه وتعالى إنه شيء وعلم آدم الأسماء كلها آدم وحم مقعد شروع أردن بالبراي وحال براي أقون ملائكة كعاجستي وسمين كرويدي هذا آدم إن كيسو مدد نطي مالك لك مادما آدم كإلهي إلهي سبحانه وتعالى أسماء أردن بالبراي إن كيسي باتي تمعنى هدو حويا أنا ندوح كستبص بين كرتو مسألة مركا ماشا تعالى وحويا jahliga aynu nafteenna jaahil ka nahay ayaa waxay keentay inaad arki weydo xoogga Alle ku siiyay subxaanahu wa ta'ala iyo awoodda aad haysato sida daraadeed ayaa waxa dhacday in aad waxba qaybi kari weydo ama inaad wax baran kari weydo ama inaad xaafid noqon kari weydo nabi muhammad alayhi salatu wassalam wuxuuna leeyahay المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام يا مؤمن كحوجا إمام النووي وحلي حوجا لشيء وقوة نفسية بولي مؤمن كحوجا باك خير بدن بو نبي يقول مؤمن كضعيف كا لا بد بنا خير باكو تشرو دي إيمان باكو تشره نبي حين لا يحرص على ما ينفعك احرص أو احرص لا بد ولا شيء كد دال بالليل وحكو أنفعيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام عين كاسبين ليه وحاوين ليه نبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز ولا تعجز لا بد ولا شيء إلهي كالميس سبحانه وتعالى يمرنا بها عجزين عجز قويني وأدقو أودا دارك وايه إن آدمك ولالك دليواك أودي سبارك وايه دبتنا ولالك ينتور تسكي قسيتي إلهي سبحانه وتعالى وصدر محي غراب تكوح بره دبتنا وحدا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى تاخي ورما وحن كعاجسي ما وحن كهوس مري تكهكن حوق وقبيه جهل قاهي حوقيسي وقبيه تكهن علمي ككردي جهل قاهي تكهن السلسلة دي كحد نيد بكفري وسلسلة الرباين إنه قلب تسكفر يعني قف بني آدم وإلهي سبحانه وتعالى وأبو ريوم وحقيب كريم مجره بل وحن تلمامنا لنا نبي عليه الصلاة والسلام دعوين كيس الصحيحين ككويا الله بل أبواب توصى ما يستاهل باب التعوذ من الجبن باب كذا أي أبواب توصى ما يستاهل وحكم ده صحيحين كي غير كي بكسو أروري دعاء النبي غير كم ده هاي النبي عليه الصلاة والسلام إنه إلهي كما قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل بل وحي كم تهي أوراد يومي قال قرب وقف كستو مسلمين وأخريه شبع كستمر كتصوت واستوى حتى هذا بالولي إله هو حن كام قال عجز وعدم القدرة هي كسل قنا وهو هذا ودك وهسته إله هو ضر كام قال هي وهس هي تمر ضر وحين تلمامنا لنا مشكلة دينا وحي تاي هنكينا يراضي سيدا أوجد أي وحي نكو قنعنين هوسه لابا مد قاركين وحابة كو قنعين قرآن كان ينال لغايب كريم كو قل دينا قرآن كغايبتين وحا لغايب يني بس هلكا كو قنعين هلكا هدين لقاري هلكي يوسر رئيسين لجوغو لكن وحا لنا هي مسلم كمان تجوغه هي مسلم كي هوري وإسلام بني آدم بل إنك كفرصات بدن مركي فرص كتاهي فرص ك بخاري وحول لقيني أنتو بخاري كسو لقيه إلا مصر إلا عراق إلا شام إلا إيو حجاز
ayuu maalimo dhan u socday cimrigiisii lug buu ku dhameeyey siduu u waday isagoo ururinayay laakiin adiga waxa laga yaabaa kili computerka aad taabatay inay ka xigto ama kitaabaad maktabada ka qaadataa inay ka xigto wuxuu bukhaari inta la lugeynayay furaskii adiga haysta laakiin waxa yaala waxa weeyaan hankaaga yar hankaynu niyadaynu hayno iyo hanka aynu hayno iyo waxa aynu isleenay xaqiiqi baa yar marka horeba meel fog baanad kaba fakaraynin qofka bini'aadamkan hadduu hankiisu yar yahay waxa maaha casriga kan musaabaqaad baa la qabtaa sunanka ka mid ah riyaad saalixiin baa musaabaqa loo qabtay inaan muslimaad oo masriyada laba maalmood bay ku qaybtay ataajabuun riyaad saalixiinka waa laba kun oo xadiis maalinba kunun bay iska tuurtay labadii kun ee xadiis laba maalmood bay ku qaybtay muna saciid gabadhan la yidhahdee macruufka waa gabadh xifdiga ku macruufa buluuq ilmaraam 7 saacadood bay ku qaybtay buluuq ilmaraam ma soo taqaaniin kitaabka dhigataana buluuq ilmaraam ka la yidhaahdo 7 saacadood bay ku qaybatay muna saciid waxay qaybsantay ilaahay kitaabkiisa saxiixaynka bale waxay qaybsantay al-ummahaat al-4 10 waa haweeney 14 kitaab ee sunanka ugu waaweyn bay korka ka haysaa dadka hadda nool الشيخ محمد حسن ولا دودو شنقيط غير شيخ غنا وشيخ كنت تشرقاري مكو أفرتن كداف 40 فن بحفظ سنين وحلقة يا مكتبة هذا أنت كتاب تالي أنت قلبك يسقو شراين وكيسك وبطه وأنا قف بني آدم أنا أفرتك بقاري أما يمكن أفرتك كطلابية وهن وحكني علماء الشناقطة شنقيط مركة تكتو قف وحو يقان قيب سنين بما تشوقه شناقضهم بني ادم كغار بني ادم ككلا مايا وانا من افريكانا او انو اك او ريرميه او جيلا هيستay inta aynu haysano oo nolosha inta aynu kaga noolayn ka sii liidataba kaga nool laakiin waa wada xifdisan nin kasto sheekh lagu sheegaa ninkuba maxamed xasan wala duddo aba wuxuu leeyahay 40 fanni ninkan wax ka aqoon de sheekh lama yiraahdo buu yiri 40 fanni ninkan wax ka aqoon qofku wuxuu yaqaan uu qaybsan yahay waa wax fudud wax weyn ma inaan Soomaaliyeed waa Ingiriiska jooga Ingiriisku ka yimi meelahan muslimiintu yimi subaxii buu yiri markaan salaad subax ka baxaan fadhiistaa ilaa 7 dhowr bilood buu ku qaybay quraanka dabeetana wuxuu ku xigsiiyay Alfiyat ibn Malik in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay Alfiyat Suyuti in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay Shaatibiyada in yar buu wuxuu soo qaday iska qaybay sheekh imka urduniya oo khaliijka culimada ka shaqaa kamidi ingiriisku ka yimi ragii rabshada badnaaya meelaha ingiriiska joogay buu dabeetana waa iskaga yimi meelahan buu yimi urdun 2 sano meelaha soo masaajid isku xidhay hatta waxaad aragtaba uu qaybsan kitaabka aad istiraado balkan sheeg isagu korku ka haya waad u bilaabaysaa kitaabku akhrinaya ما أها بشر عادي يدك كانه يعني دك كجديسن معها هوشاد هيسابوه هيان شقادة القبطابي قبطان سدح دمري قبان وأبيين عرور بيوش شقيان واحد وضابي قبطان لكن حقيه وحسكوي درسين وحين لاني واحد وحسكوي درسين لوضع شيء بقى وباهنين نفهمنه إنه هنيا لأنه عالي الهمة إن نقطه قفك عالي الهمة وحلقوا يقنين عزيمة لي إن أنا حماس وحيسوا هاي لا عشية ما لين طاد حماس هذا طايرة دبتنا لا عشان يسوي رسالة دورات حاجة دبك كتاب كتور تمايا ما ينو نقضوا قف عزيمة له فإذا عزمت فتوكل على الله بالله مركات قوان سطان إلهي سبحانه وتعالى تلا صارته قفك عالي الهمة جا وحلقوا يقنا وحه سكوا مقنعه وكو إمام ابن الجوزي لها haddii buu yiri nabinimada la oran lahaa farsama lagu helayaa iyo barasho inaad wax nabinimo ka yar raadisaa waa ku doqonnimo buu leeyahay yani meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa ku doqonnimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyul himma waa qof raba shaqada uu qabanayo inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudh alkitaaba biquwa baa ilaahay yiri yaxya kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal وحي الله سبحانه وتعالى نتلماميا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نكدداله
dantiisu aakhira tahay ilaahay subxaana wa tacaala waa uga mahad celiya waxaan leenahay qofka caaliyil himmaga ahi waa qof wakhtiga bakhayl ku ah waayo 12 minid haddii beyj qur-aana lagu qaybayo imise saacadood baa kaa luma maxaad 12 kan kaaga dhigay wax weyn waxay yidhaahdaan culamaa'i nafs insaanku bay yidhaahdaan التعويض waxa la yidhaahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waayay bay yidhahdeen meel kaloo isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yidhi dayn isku mashquulinay dabeetana xaggaasaynu ka wada muuqan masalada meesha taalla waxa weeye waxay dhahaan caqliga bini aadamku waa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa alcaqli alwaaci qaybna waxay ku sheegaan alcaqli albaatin aw illashucuuri alcaqli alwaaci waxay ku tilmaamaan waa caqliga soo jeeda waa caqliga taxliiliya waxaan xawaastu ay aragto isha iyo dhegta iyo maqalka iyo dareenka iyo waxa kan ka warrama fakara wax sheega caqlina waxa la yidhaha waa caqli albaatinka caqli albaatinku waxay yidhaahdaan waa xajmi aad u weyn isagu caqli alwaaciguna waa wax yar bay yidhaahdaan laakiin waxaa yar baa hogaamiye bay yidhahdaan caqli alwaacigu markaa wuxuu u dhigmaa bay yidhahdaan waa naakhuudaha doonta wada doon weyn buu wadaa laakiin isagu waa naakhuudo yar caqli albaatinka waxa la geliyaa ma lumaan waxaad see u baahantahay inaad ka dhaadhiciso shaygu markuu caqlulbaatinka caqlulwaaciga ka sare waa kan fakere ee taliya ee warrama ee warka sheega laakiin intaad soo jeedana wuu soo jeedaa markaad hurdanaysna wuu seexdaa wuu maqan yihi caqlilbaatinku isagu ma seexdo habeen iyo maalinba wuu soo jeedaa wixii loo dhibana waa ilaaliyaa عقل الباطن كوحة وحلوغو ديبا كعلعلين إيا كدادعين التصديق والتكرار باوغو بدن بايد هذا إن لفهم سيو لغا دادعيو لغونا علعليو إساقو بايد هذا وحو قعان تقودغو وحو كدغا طبيعة إيا سجية إيا عادة إيا سلوك بو بدلة يعني دقم بو بدلة مثلا وحلوغو شاقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وآه إن مدكتا وحلوغو عبو وحلوغو عنا وحلوغو قاطو صحيح ما حديث كاسين هينا ما أنت كواد حديث كاللوغو شاقي الشيخ كتاب كدغي أداك فردي واد فهمت حديثكي هذا هو مركز مقاهدة تكتار شاء البطان ما بدح نسكير غادون كسو شيخ خويري كدا مدك تقعد أتكلم كتاب مدك تقعد واني لا بيباتر شيخ مدك تسكيعبت صاد حفر شنطة عشاء هره مرة بدح تخوير قبر يسمرنا مدك تو مركز دحدا مرة نسوي مد حصصني صادق يسوي صور شيطان بنا لعبي مدك تاتكو قادنس لكن مركز مدود ضوء اوتوماتيك بيسو بدشه كوب الله صادقيا مدك تو باتكو قاد ولقى بدح لكو قبل ميشي واتكبرت waayo waxay yidhahdaan caqli albaatinka ay degtay uma baahnid inaad fikirto tiraahdo ma bidixdan ku qaadaa ma midigtan ku fikrad lagama rabo inaad tiraahdo bidixdiiyo midigta teebaa go'aan ku qaadanayaaye waad iska fiiqaysaa qoladan wax baadha waxay yidhahdaan maalan askarta askari haddaad doonaysa bay yidhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu tireengareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabmi jiray haddii aad askari taagto isiraha socod bilow bidixdun buu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidix kolba tii u fududaatay inuu qaado idan caqli albaatin kuba yidhahdaan waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaana in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalintumaad miirowdaa soo ma jirto يا أخرنا يلا أدقوا مقنا إذا يعني عقل الواعي باب مقنا عقل يسوي شيء أيام مقنا لكن عقل الباطن بعده ديبته مرة ده عقل الباطن كهو ديبته ما ضيع عنده واسكوا وضيع يسقو ولا الضال أنت تكون ميرا وضيعون مركم مرينا وحلم ده حفظه مركه مرنا وحفظ كالصريع وأنت يرسلون أنت دولك حادثي عقل الواعي هيا oo safxadaad ka fakaraysaa oo ayadii ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaad eegaysaa oo maskaxdu waxba xisaabinaysaa inta wali aqli alwaaci ba xifdiga ugu jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakartee sida faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan waqtigeena ka faa'iideyno
oo isku dayno inaad waqtiga ka faa'iidaysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaynu u baahanay inaynu ilaahay barino tala saarno gabadhan ilaa 16 jis bay qaybtay waxay tidhi marka aan dareeriyaba maalin qaybaba waa sujuudaa oo sujuudaan ilaahay ku baryaa ilaahu intaan aadan ku dhiibay ma ilaaba bay tidhi intaan ilaahay u dhiibaba waa qayba un bay leedahay markaan dhameeyo ma idhaahdaa ilaahu aadan ku dhiibay nabiguna wuxuu ina leeyahay alayhi salaatu wasalaam a'jasu an-nas man ajasa 'an ad-du'a dadka waxa u caajisaysan ka ilaahay baryadiisa ka caajisa dadkaas ugu caajisaysan buu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay wax kasto aynu qabanayno inaynu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u tala saarano waxaynu u baahanay mesela cilmiga barashadiisu waa tarkiiska bay yiraahdaan aqligu marka wax qaybayo waxay yiraahdaan 10 daqiiqadood oo tarkiisa ayaa 10 saacadood oo kolba darbi daawanaysa ka fiican ولذلك bay yiraahdaan ardayga xaafidka wax qaybaya waa inuu qaybaa meel uu aqliga tarkiisin karo oo aanu wax mashquuliye arki karin oo saadaraadib culimadu waxay yiraahdaan inta ugu badan la qaybis waxa ugu fiican suxuurtiya wixii ka dambeeyay ilaa salaada subax ilaa intaasi waayo waqtiga bay yiraahdaan jawiguna waa haadi dawda iyo qayliya buuqtoona maqlimaysid calooshuna bay yiraahdeen ma buuxdo caloosha haday buuxdayna waa inkaar وهذا ديك بين تبدأ عبتود مشغولة سه لكن مركب بيلين شركنا وفدودي هاي علاشنا مبوحدة ديك أنت وقو بدل لمسكح ذا قاضن سه قفكنا وتركيزين كرابين هذا إذن ووقت الحفظ بيكون المام شرع على مدى هراء إنه يهاي وقت جوفي عن وقفك وحفظي كرو واحد كلاو أنت هاي إمام حسن البصري بوحلها ورنفت بيقول هذا حقكم مشغولين باطل كيكون مشغولين سه nolosha ma jiro waqti firaaqa leeyahay imika bishan horta waan shaqeynaya bisha shaqeynaya sana qayb waayo noloshu waqti firaaqa aba ma leh mar kasta hawl nooca un baa ku haysata saadaradeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan al-basri war naftan hadaanad iyada xaq ku mashquulin buu leeyahay iyada baatilka kugu mashquulinaysa adigu shughul ba waayimaysid adigu shughul waayimaysid mar hadaanad shughul waayeen adigu shughulka xadee shughulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga ka soo fulo ahmiyad ku kala leh oo priorities ku kala fog waxaad kala u baahantahay albi'a almuthabbita inaad ka tagto dadkan dadka cagsi galiye waxba lama qaban karo waxba nabi muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulku waa maxay waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego wanaaga in waxa la qaban karo culamaa nafsi waxay yiraahdaan الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية وحلا يراهدان شيغان waxay yiraahdaan risalaadka iijaabiga positive-ka wanaagsan iyo wargeysyada ama dambaalada negative-ka ama xun mesela bay yiraahdaan ilmaha yara quraanka aad u dhigaysaa tidaa qabi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihiin ximaar culamaa nafs way waxay leeyihiin hadii lagu celceliyo aqlul baatin ku galaabay yiraahdaan aqlul baatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan saadaradeed wuxuu ku qancaya bay leeyihiin inuu fashiliyay oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay yiraahdaan tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicanta inaad tiraahdo inaad adigu yara samayso tiraahdo maanta ana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 minute halka u bax intaas ugu filan bay leeyihiin inuu qaybo ولذلك حتى waxay yiraahdaan markay culimada kuwan psychology markay ka waramayaan waxaad rabtay waxa laga yaabaa nafteena inaan wali baran waxaad rabtay nafteena ka dhaadhicsan intaad cid la fadhiisato bay yiraahdaan u sheeg adigu naftaada kor ugu dhawaaq bay yiraahdaan ma arinta ka war waxay leeyihiin intaad cid la fadhiisato waxa tiraa quraanka waan qaybi karaa waxay leeyihiin waa risaala loo diray bay leeyihiin aqliga aamusna حتى بيد هذان سيد النيجاتيف كاها واستعمال بيد وايا تضمبو قبطا بيد هذا مثلا النيجاتيف اكو استعمال يعني ما اودي كروينا ما هي فاشل هورن بيد فاشل كو قبنا يا بيد هذا واحد هذا ناجح بان وان غوليسني هذا بيد هذا واي واحد عقلك بني ادمكو hadii lagu yiraahdo مثلا iminka bay yiraahdeen faras madow ha ka fakari maskaxdaadu marka ugu horreysay faraski madow bay qabanaysaa bay yiraahdeen diimka ku faras madow ka fakirin faraska madow ee maskaxdaadu markiiba u talaabaysaa laadii hore bay yiraahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraadeed waxay culimadu yiraahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة qofku inuu isticmaalo weeyaan nafta inaad u sheego noloshu sucuubaad bay leedahay
waa daali kartaa mushkilad baa kaa hor iman kartaa waxaasi laakiin waxa loo baahan yahay inaad ka dulboodo waxa loo baahan yahay daaqaadkii kugu kaydsanaa inaad dib u adeegsato waxa loo baahan yahay inaad isdhiibin nolosha isdhiibka ugu liita waxa loo baahan yahay markaa inaad tidhaahdo waan qaban karaa waan qaban karaa waan qaban karaa waa qaybi karaa waa qaybi karaa waa qaybi karaa sida awgeed nafta inaad adgu mashquulisaa baa loo baahan yahay waxay yidhaahdaan bii'ada markaa qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicanta la saaxiib had iyo goor mid kaa qaybis badan iyo kaa sii horbooda oo kusii hor socda ninku wada walidaalika waxay yidhaahdaan jawharadu bay yidhaahdaan haddii jawhara meel nijaasa ay ku dhacdo shay thamiini oo aad tiraahdo daahiri biyo badan haddii lagu shubo aakhirka way daahiraysaa laakiin waxa ka fudud bay yidhahdaan intaad ka qaado aad maydho in yaroo biyo nuskoo baa nadiifinaya maydhaya laakiin halkii uska guyaallay haddaad biyo ugu darto waa taa macnaheedu waxa la mida bay yidhaahdaan dadka musbitiintii hadday kugu xeermaan un dad le waxba lama qaban karun haddaad la noolaato adna waad caajisaysaa marka dambe waxaad isku daydaa bay leeyihiin dadka duulaya inaad la duusho dadka wax qabanaya inaad la qaban karto walidaalika ikhwatii fi lcaqiida waxaynu u baahanay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimka ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaasi niya ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaanu leenahay 60 sannadood haddii second kasta 10 shay lagu sheegayo hal loo qaybiyey milyuun awooddii maskaxdaada ka mida baa la isticmaalay bay tilmaamayaan adna waxaad odhanaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacantaydii xidhantay un aanad ku dayin inaad kala bixiso يعني waxaad u baahan tahay inaad kala bixiso aqligaaga inaad soo celiso waxaad u baahan tahay daaqada alla ku siiyay subhanahu wa ta'ala inaad ka mahad celiso inaad ka mahad naqdid oo dib aad u adeegsatid waxaad u baahan tahay markaa inaad ilowdo cabashada iyo ma awooda iyo cawaamisha nafta dib u dhigtay iyo waxa soo dhan inaad ilowdo aad mundafic noqoto aad hore u socoto waxaan leenahay waxaad u baahannahay al-awaamil al-mu'athara al-kharijiyya waxa nafta dhiirigeliya مثلا hadii la wadaado halka 4 saacadood istaag waa adagta 4 saacadood saamagu taagnaa karaysa ciqaab ay noqonaysaa xubin waliba oo ku damqanaysa laakiin hadii la yiraahdo hargeysa maanta ninkii 4 saacadood taagnaada $10 buu leeyahay cidii lahayd inaad arki jirto ma malaynaysa lama arkeen waayo $10 baa mooda $10,000 hadii la sheego 4 saacadood oo qudus la sara taagnaado dhabar iyo meelku xanuunta baad isgeejinaysa dan noloshu waa caynka waa laga yaabaa markaynu leenahay waxbaro caraaqil baa jiraysa ka hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'atharaat khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dee mu'athirka weyn baad garanaysaa jannatin carduha as-samaawaatu wal ard u'iddat lil muttaqiin hadday kuu muuqato janno cirkan iyo dhulkan baleeg iyo waxaan oo dhan ka weyn inaad helayso 4 iyo 10 iyo 20 batay taagnow 10 iyo 5 iyo 10 baa i'tikaaf inaad quraan xifdido culamadan ku sheegay leeyahay waxaan baadhay man xafida al-quraan baan ku dhuftayda kutubtay qaybsayin wad qariibsanaysa xafida al-quraan kada kada dabeetana waxaan leenahay qof waliba wax buu qaybi karaa da kasta joog cid aan la hadlaya maanta ma ha dhalinyaro way dhalinyaradu hadday soo bilaabayaan fursadii bay haystaan waa da'da roon ee isla waqtiga baa idin dhaafay war habeenidii kama tagin ninkaasi kontoriya 40 jirka aha 4 sano jiray baan leenahay sheekhu Lazar noqday idan aqligiina alla uu ku siiyayna waad haysataa waxaad kale u baahantahay waxa weeyaan waqtiga inaad ka faa'iideysato waxay yiraahdaan hajmatul waqt inaad adigu waqtigaaga weerar ku ahaato waanu ka dayacmin aad ilaaliso waxaad u baahantahay makaan munaasib inaad heshido aad wax ku qaybtay ama wax ku xifdidid waxaad u baahantahay bay yiraahdaan muntazim inaad noqoto qof nidaam raacaya inaad noqoto waxaad u baahantahay bay yiraahdaan takraarkaasi tirada badan la inaad samayso
waxa runtii aan sheegi karnaa mase akhriyi karnaa wax badan waxaan ka warramayaana wax khayaal maaha xaj ka mid ah xajajka ayaan tegay axad alculamaa baan khaymadiisa ku soo booqannay niman dhallinyaraa baa la joogo fataawida ka fatwoonayay markaas wuxuu yidhi nimanka kan waxaan ku tijaabinay inay sunanka qaybaan dabeetana markay qur-aankii qaybeen sunankiina way qaybeen iminkana musnadu imaamu axmed 40 kun oo xadiid oo imaamu axmed ay haddana wadaan buu yidhi iyana waa qaybayaan waa niman dhallinyaro iska caadiya waa nolol caadiya ku nool dee innaga waa laynaguba eegin waxa layna yidhi waxba lama baran karo waxa layna yidhi waxba lama qaybi karo waxa layna yidhi waxba lama noqon karo saa daraaddeed baynu waxba noqon weynay laakiin maanta waxaan idin leeyahay war waxbaa noqon kartaa bukhaari waa idinku jiraa ee waa la soo qaban laayahuun bukhaari kelmad baa soo saartay isagoo fadhiya jalsadii isxaaq ibnu rahwey axadu a'immati alxadiid shuyuukhdiisii ka mid ah isagoo jalsadiisa fadhiya ayuunbuu shiikhu maalintii wuxuu yidhi ma alla helo low mid idinka midi talow muu ururiyo axaadiistii nebiga ka asaxday kelmadda unbaa bukhaari qub ku tidhi isagoo jalsada iska fadhiya ayuunbuu sheekhiisii wuxuu yidhi talow ma alla helo nin idinka mid ah oo ururiya axaadiista saxiixa haadihi alkalima baa anfacday imaam albukhaari dabeetana wuxuu u xidhxidhay inuu kitaabka bukhaari qoro laakiin bukhaari inuu qoro juhdu ku bixiyay habeenkii 20 jeer buu kici jiray mararka qaarkood habeenkii 20 jeer ayuu mararka qaarkood faynuska shidan jiray imaam dahabi imaam albarzali muxadithaha imaam almuzani ay ragay muxadithiinta wada joogeena ayaa maalin arkay dahabiyo wax qoraya dahabi aad buu far fiicnaa dahabi wuxuu ku horeeyay cilmi alqiraa'at iyo quraanka iyo xifdiga iyo xagaas ku horeeyay dabeetana imaam albarzali baa arkay isagoo wax qorayo markaasuu yidhi khadkaagu fiicana waa khadkii muxadithiinta kelmadda baaba qubtiri baa la yidhi imaam dahabi markaasuu u dhaqaaqay cilmi alxadiid waa dahabigu ibnu xajar u cabayay biyaha ilaa uu xifdigiisa haysay nin baa yidhi war far fiicanide fartii ahlu xadiidka aad leedahay baa lagu yidhi fartii ahlu xadiidku yeeshay dabeetana yani eray baa loo sheegay imaamu dahabi dabeetana ka dhigay inuu noqdo imaamu dahabi dariskan maanta aan waday markaas waxaan rabay inaan idiin sheego culimmadeennii tagtay dad khawaariqul caada oo gaaro oo qiino gaaro meel gaara laga sameeyay inaan ahayn saynis yahanadii aqoon-yahanada maanta jooga dunida la leeyay cirkay wax u direen iyo halkanba ka baxeenna inaanay dad gaara ahayn laakiin waa dad ku qancay in ilaahay awood uu siiyay ay ka faa'iideyn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan wax oo awoodi karaan nalkana arkaysaan ninkii bilaabay Watson 9 jeer markuu ka bixiyay markunaadkiibuu u baxay tasmacuun laambad buu rabay inuu shido cilmigii bariga bilowga ahaa ee waday waa wadaa waa bixi weydaawun waa ku soo noqdaa waa wadaa 1000 marra buu ku shiday bay yidhaahdeen markunaadkii buu ifiyey tawaynaga wali ifisanayna laambada dunida nin baa gami waayay inuu ay la noqotay inaanu ka gamayn bahashana baxda mooyaane dabeetana markuu gami waayay unbay aakhirkii laambadii baxday dunidoo dhammina waa taa wada laambada noqotay kelmadaan rabaa maanta waxay tahay programmingkii hore ayaa formatting laydinkaga samaynaya tacrifuun luqat alcomputer waa taqaanin baan u malaynaya shayga marka dib loo masaxayo waa la format gareeyay bay yidhaahdaan waxaan rabaa in maskaxdiina dib u format garaysaan ka format garaysaan cajzigan iyo wahniga kan iyo waxba lama qaban karo taa meel inaga dhiga waayo dadkii horena waan idinka sheegay kuwa maanta joogana tusaalahan ku badiyay inaan idinka siiyo qaar 20 casho ku qaybay iyo qaar 30 ku qaybay iyo qaar bukhaari iyo saxiixeynka qaybay war haddadan مثلا لبدا إن شيء نكمل ده دكتور يحيى الغوثي ما يا دكتور يحيى اليحيى حفاظ الوحيين ويب سايت كلا يراني قاله دكتور يحيى اليحيى أحد العلماء مدينة جنب رجيني يحيى اليحيى وحلي برنامج سنن كلا قيبسية دتك قرآنك ما تقانين أنت لقو قيبسية قرآنك الدورة دي سؤال لحدا ما الموضوع لقو قيبة بس labada bilood ee ardada iskuulada ka fasaxatahay
ayaa la isliiskareeyaa ardabuu la iskareeyaa xarameynku keenaa labadaa bilood ayaa qur-aanka lagu qaybaa waa dawra lixifdi alqur'aan 60 cashaa meel la fadhiyaa shaqo kale la qabanin lagana bixin cunnada un la cunaa loo ictikaafsay in qur-aankaas un la akhriyo la kala dhagaysto 60 casharra ku qayba sunankuu dadka qaybsiiya nidaam gaaru iska leeyahay uu raaco awalan bukhaari iyo saxiixu muslimku inta isku waafaqeen buu soo ururiyey kitaab gaaru qoray kitaabkaas ardada loo dhiibaa mattafaqa shaykhaan baa la qaybsiiyaa kadib ayaa ardayga waxaa la qaybsiiyaa man farada bihi limaam albukhaariy oo gaara wixii imaam albukhaari uu dheer yahay waxaa la isku itifaaqsan yahay kadib ayuu wuxuu qaybsiiyaa wixii imaamu muslim uu munfarid leeyahay ee aan ku jirin bukhaari intaa markuu qaybsiiyo alfaadda ay mukhtalif u yihiin baa la qaybsiiyaa kadib wuxuu raaciyaa sunanka la soo qaadaa abi daawud wixii aan bukhaari iyo muslim ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbineeyaa intaasaa la qayba termadi wixii aan saddexdii kitaabee hore ku jirin ee uu gaarka leeyun baa lagu dulbineeyaa rag unbuu soo saaraa sunanka qaybsan idan waxaan idin leeyahay shabaabka xufaadda ee qur-aanka haya iyaga waxaan leeyahay bilow baa tiin haddaa qur-aankii haysaan ka socda xadiidka qayba culuum alaala qayba kitaab dambe idinkoo akhrinaya yaan la idin arkin kitaabka akhri inta aad ka qaybayso bes a'immat almuslimiina dhammaantood caynkaasay ahaayeen kutubtooda laabtooday ku siteen imaamu shaafici gabaygiisii muxuu ku sheegayay waa kiilo haddee cilmigu waxa qardaas ku qoran maaha buu yidhi oo waxaad qalbigaaga ku sidata un ghazaali baa la yidhi baa beri kutub soo rartay isagoo wataa tuugi heshay markaasay dhacda markaasuu yidhi war kitaabadun iga taga cimrigayga wixii aan qoraya halkay ku jiraan war soca bay ku yidhahdeen kitaab layne maalintaasuu tashada uu yidhi cidlaad qodaysi wixii dambe wuu qayba dee tuug dambe muxuu ka qaaday kitaabkiisii laabtiisa ku qayba waxaan uga jeedaa marka kelmadda tani waxay fura u ahayd inaynu soo saarno dahabi iyo bukhaari iyo muslim iyo shaafici iyo abu xaniifa iyo maalik waa idinka buuxaan hadday culuum maadiya tahayna einstein iyo kayrkiiba waa idinku jiraan laakiin ha ku qancina waxba garan maysid iyo waxba baran kari maysid iyo meel cidlaha baad joogtaa iyo aduu afrikaan baa tahay iyo kan baa tahay iyo cajami baa tahay waxaas waa sheeko daaqada alla ku siiyey ilaahay uga mahad celi subxaanahu watacaala iskuna day inaad adeegsato ragga halkan ku ictikaafsanna waxaan leeyahay dee idinku 60 cashaa tijaabinaysaanba inaad qur-aan ka qabataan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu